دكتور قرب صادم سلام نحوينا كن سلام مدن مدحوينه وعسل اشرف هذا الديار واه دوكسيغا بوليسكا دعفدي اللحاد مدن انا نخاجي يقولوا مدن مدحوينه
ciidankani waxay madaxa madaxweynaha soo bandhigayaan difaacu nafsiga mudane madaxweyne waa kooxda bandhiga kahortagga rabshadooyinka noo galow inaan soo bandhigno mudane madaxweyne jamiicaas aad arkaysaan ninkan aad arkaysaan waa ninka hogaaminayo mudaharaadka marka asagaas ayaa waxaa weeye targeedka koowaad ah qaabka loo qabanayo waa sidaas hadda ciidankaas kalena waxaa weeye way difaacayaan intaa la qaaday bay ka difaacayaan dabyowdii kale ee laga soo dhexqabtay hablaha boolisku waxa loo suubiyey waxay tahay waa inay hablaha kala soo xidhaan ma sharcigu kuma jiro kan islaamka iyo kan inay soo xidhaan rag haweenay soo xidhaan waxay uga dhigan tahay cutubkaasi waa cutub haweene waxaa loogu talagalay dadka mudaaharaada qaybta dumarka waxaan uga mahad celinayaa ciidanka tababartay iyo inta tababartay iyo inta wax ka soo diyaarisay intaba shaqada fiican ee halkan ka muuqata qof waliba intuu ku leeyahay inaan uga mahad celiyo sababtoo qofkaan dadka u mahad celinin de ilaahina uma mahad celinayo ha ugu horeeyeen mas-uuliyiinta ciidanka ha ku jireen Artemis Police iyo cid kastoo qayb ka noqotay diyaarinta difcadan tababaradooda iyo waxqabashadooda iyo waxaan aan arkayna sida loogu soo bandhigay markaan intaa ka gudbo ciidanka booliska hadda difcadii lixaad ayna hor taagan tahay dagaal baan ku jiraa dagaalka aan ku jiro macnihiisu waxaa 1 iyo 2 iyo 3 ka ah shabaabka lala dagaalamayo shaqada kuwa xoreynaya la dagaalamaya waxaa qayb garab socota booliska oo la wareegaya meeshii gacanta lagu qabto sababtoo boolisku waa ciidanka iyo maamulka iyo shacabka cidii u dhaxaysay ciidanka boolisku iyagaa u dhaxeeya maanta waxaan u diyaar garoobaynaa ololahan dagaalkan aan qaadnay in meeshii la xoreeyo ee shabaabka laga xoreeyo ama khawaarijta laga saaro loo diyaariyo ciidan boolisa oo dadka gacanta ku qabta oo dadka iyo maamulkooda haya oo shacabka iyo xukuumadda u dhaxeeya oo ciidamada amniga ama xoogga dalka ha noqdeen ama kuwa daraawiishta ha noqdeen ama qaybaha kala duwan ee ciidanka dagaalka ku jiraay meeshii ay gacanta ku qabtaan iyagu kala wareegi lahaa inay noqdaan ciidanka boolisku oo aan rajaynayo laba xaalaba Artemis tababarka ay siiyaan ciidankaas waxaan codsanaynaa qalabka lagu tababaray iyo tababarkooda wuxuu ahaa in loo dhammaystiro oo karabshadaha ay kaga hortagayaan iyo kan kale iyo kulligood waxa qalab ay u baahan yihiin Artemis in loo helo qalabkaas ciidankaas annagu waxaan ka shaqaynaynaa inaan isku dayno ciidankaas in shaqada ay leeyihiin maanta maalin aan uga baahi badanahay ma jiro waxaad ogtihiin hadda deegaano badan oo ama daraawiish ay joogtay ama xoogga dalku uu joogay inaan ka bannaynay waxa loo bannaynaya deegaanadana waa booliska degmooyinka la idinka keenay ciidamada jooga kulli waa laga soo qaadayaa howlgal bay gelayaan waxa shaqada qabanaya waa booliska waxa u diyaar garooba markaa boolisku amniga waxyaalaha maanta ugu daran waddanka Soomaaliya akhlaaqdii baa luntay
xashiishka iyo waxyaalaha maandooriyaha ee dhaqanka bedelay waxay noqdeen caqabada koobaad ee waddanka Soomaaliya maanta dhibaatada ku ah oo dadkii macna ahaan ay isu bedeleen waxaan rabnaa boolis ka hufan oo ka nasahan oo ka sifaysan oo waxaas oo dhan ka hortagay inaad noqotaan haddii la haydaa annana aan idinku garab istaagayno sababtoo boolisku waa riximka waa qofka ugu dhow waa qofka qaraabada la shacabka isaga marka waxaa la rabaa inuu wax walba ka hufnaado inuu wax walba ka dhowrsoonaado inuu wax walba isagu noqdo qofka ugu dhow ee shacabka ugu dhow wax kastoo dhibaato shacabka ku keenaya isagu ka hortagaya waxaan kelmadeyda ku darsanayaa Soomaaliya maanta talaabay qaaday talaabada qaadana waxa weeye in dadka khawaarijta magaca sheeganaya diimeed waddanka lagula dagaalamo waxaan u mahad celinayaa intii bilowday madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo iyo isteydyada iska saaray meel saaray iska soo sifeeyey talaabada qaadeen saaxiibada aad baan uga mahad celinayaa waxaan anagu maanta diyaar u nahay oo aan bilownay oo aan ogahay weliba inaan cidina nooga badsan doonin oo aan ogahay culayska ugu badan inuu noogu dhaco doono operation-ka aan bilownay ama howlgalkaasi insha Allah ma istaagi doono ilaa caasimadii oo adoogaasku uu sheegayay iyo inta ka sheesaba aan gaadhno ilaa qofka Soomaaliga ah tuulo walba iyo wado walba intuu isagu isu maro magaalooyinkii la socdo shaqahan qabsano ma istaajin doono operation-kaas haddii Ilaahay ilaa waxaa dhibaatadii ku filan maanta meeshii la tago caqabada shacabku ay la kulmayaan ama ay sheeganayaan oo wax aan sawiri karayn dadku marka iyaga inoo yeedhaya baahi baa haysa way dhiban yihiin way ciqaaban yihiin xoolihii bay ka qaadanayaan sanad gudihii baa 3 goor xoolo laga qaatay nin geelaya oo la leeyahay waliba neefkii la rabo kana la qaadanaya haddii xoolihiisu gad mooyaan xalee lacag keen xoolaha way baaba'ayaan dadkaas iyay sugayaan markaa taasaan ballan qaadaynaa inaan dagaalka shabaabku dhabna naga yahay saan u bilownana aan u wadayno weliba annaga ay nagu dambayn doonto sababtoo haddaynaan sidaa kaga dhabaynin shacabkeenna baahidiisuna way taagnaan dhibka haystana wuu taagnaanayaa aan u diyaargarowno howlgalka aan ku jirno inuu socdo ma istaagayno waan wadaynaa dhabarkana waan banaynaynaa horena waan banaynaynaa webiyadana waan gudbaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo sidaasna waa siyaasad madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka madaxdooduba la qaatay in heshiiskaas la galo go'aankaana la qaato lagana dhamayn doono aanan rajaynaya 6 bilood ee soo socota shabaab inaan ka kaaftoomi doono caqabadiisuna naga hadhi doonto ciidankuna uu waddanka la wareegi doono Soomaaliyeed Soomaaliyana ay noqon doonto mid shaqadeeda iyo israaceeda iyo midnimadeedu ay meesha ka sii socoto waxaan idin rajaynayaa guul waan u mahad celinayaa qolada mar labaad Atamis iyo UN Police shaqada ay qabteen waxaan rajaynayaa inay sii laban laabaan shaqada ay qabanayaan ay noqoto mid laban laaban